taliyaha madaxweynaha Soomaaliland arrimaha bulshada mudane Faadadan Cado ku sugan magaalada Burco ayaa xalay maraan kula kulanay Hotel City Plaza magaalada Burco waxaan wax ka weydiinay warar ay dhawaan qoran warbaahinta qaar ka mid isla markaasina sheegay Faadadan Cade oo ka howlgalay Soomaaliland una sii jeedo dhinaca Puntland waxaana uu yiri markii horena waxaan joogay Xudun waa Soomaaliland iminkana waxaan joogaa Burco waa Soomaaliland inaad diiday inaad tagto marwada jeex laakiin halkan aan berito saa dambe ka bacdi gudbayaa gurigayga maraan weydiinay markii uu ku sugnaa magaalada Xudun ee gobolka Sool ee jireen tabashooyin dhinaca xukuumadda ah oo ugu sugnaa magaaladaasi ayaa waxa uu ku jawaabay dunidu dee isma dhammaato isu dhamaansha laga waa haddii wax yari jireenna waxaanu ka wada hadlaynaa dawladda waanuna heshiinaynaa Soomaalidu mushkilad bay yeelatay ما قال فلانية وحيتاي نولي بتولدي سولان ديرو كياه تولد أيدي بنشوقي لان ديرو هو قف كاد احترام ويسو وحن عادي عاد احترامي كعافمات ويستاهل إلا احترامه وحن احترامي صاحب كي عبد الرشيد عالي قنبي وحن احترامي منك عانك أهليه اسمان كوش لماذا ندير كريين ما هين أنا كم بيلاهدين وقاوان السدكي هذا سيكستبه هيا لينه والله كان وخالد بكيلي شبكة عالمية اعتراف نيوز برو.